السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kusoo dhawaada kanaalkeena waa kuma maanta waxaynu eegaynaa taariikhda mid ka mid ah haliyadii Afrika aaminsanaa midowga Afrikaanimada waa kuma ninka waalidkii la rabeen baadariga balse noqday madaxweynaha dal 1980 qarnigii 20aad sidoo kale waa kuma ninka dalkiisa ka bedelay magaca uu guumaystuhu la baxay galbeedka qaaradda Afrika sanadkii 1949 waxa ka soo baxay haliye ka mid ah haliyadii soo maray qaaradda Afrika qarnigii 20aad magaciisa oo dhammaystiran waa Thomas Isidore Nole Sankara daawada intaynaan gelin muuqaalkeenan ku soo dhawow kanaalkan Thomas Sankara wuxuu ku dhashay meel loo yaqaan Abor Volta ama meesha hadda loo yaqaano Burkina Faso taariikhdu markay ahayd 21 Disembar 1949 dalkan go'doonsan aan lahayn waxbada wuxuu dhacaa galbeedka qaaradda Afrika. Thomas wuxuu ku dhashay magaalo yar oo ku taalla waqooyiga Burkina Faso oo lagu magacaabo Yako midaas oo ku soo barbaaray yaraantiisii halkaas oo uu markhaati uga ahaa markii uu dalkiisu ka hoos baxay guumaystihii weynaa ee reer Yurub badanaana guumaysta galbeedka qaaradda Afrika waana France iyo markii dawladda musuqa ku caan baxday kala wareegtay xornimada dalka Faransiiska waqti hadda laga joogo 61 sano. Thomas Sankara hooyadii Margaret Sankara iyo aabihii Joseph Sankara waxay wiilkooda u qorsheynayeen inuu noqdo wadaad masiixi ah oo fadhiya kiniisadda balse arrinkaas isagu wuu cuntami waayay wuxuuna ku biiray militariga 1970 isagoo daahaan jiray 21 sano. Thomas markuu ku biiray ciidamada wuxuu tababar militari u aaday magaalo ku taala jasiiradda dhacda bariga qaaradda Afrika waana jasiiradda la magac baxday Madagascar halkaas ayuu ku soo kortay ruuxdiisii muwaadinimo intii uu joogay akaademiyadda uu ku qaadanayay tababarka militariga wuxuu qaatay afkaarta shuucinimada midaas oo ahayd mid markaa dawladda Madagascar isku xukumaysay 1974. Thomas wuxuu ku biiray dagaalkii xuduudda ka dhacayay dagaalkaas oo dalkiisa hooyo uu kula jiray dalka Mali kadib markii dagaalkii dhammaaday. Sankara wuxuu ku soo noqday dalkiisa isagoo ay dadweynuhu u arkaan geesi ka badbaadiyay cadowga dalkiisa wuxuuna dagaalkaas ku helay magac sumcad iyo sharaf aad u weyn. kadib markii uu dagaalkii dhammaaday Sankara wuxuu baxay dalka France kadibna Morocco halkaas oo uu tagay si uu xirfadiisa militari kor ugu soo qaado. intii uu safarka ku jiray wuxuu la kulmay saaxiibkiisii ugu weynaa xagga siyaasadda ee loo yaqaanay Blaise Compaoré iyo dhalinyaro badan oo dalkiisa ka timid. 1976 Sankara waa sarkaal militari waxa loo dhiibay xero militariga lagu tababaro intuu joogay xerada tababarka wuxuu askartu ka amri jireen inay shacabka caawiyaan midaas oo kor u qaaday caanimadiisii iyo sharaftii uu dadweynaha ku dhex lahaa. 1980 waxa dhacay afgambi lagu afgambinayay xukuumaddii musuqmaasuqa badani hareeyay ee madaxweyne Lambazina. intaas kadib xukuumaddii cusbayd waxay Sankara u magacaawday xogayaha militariga dalka Burkina Faso 2 sano kadib Sankara wuxuu iska casilay xilkii loo magacaabay 1983. Sankara waxa si ku meel gaar ah loogu magacaabay ra'iisul wasaaraha dalka hase ahaatee isla markiiba waa laga casilay kadib markii la arkay sida uu uga soo horjeedo guumaystaha France oo markaa intuu xorriyadda siiyay haddana faragelin cad ku hayay dalka Burkina Faso waxaana lagu tuuray jeel taas oo ahayd mid shacabkii ka xanaaqeen waxaana ka dhashay kacaankii dadweynaha reer Abor Volta bishii 8 1983 waxa dhacay afgambi uu hogaaminayay Blaise Compaoré
oo ahaa saaxiibkii siyaasadda ee Thomas Sankara, waxaana xukuumaddii cusbeyd hogaamiye looga dhigay Thomas Sankara. Thomaskii daada yaraa, Thomaskii la rabay inuu noqdo wadaadkii kiniisadda dhex fadhiya, wuxuu xilka dalka qabtay isagoo 3 jir ah. wuxuu rabay in waddankiisa uu qabto waxyaalo badan. ugu horeyntii wuxuu ka bedelay magacii guumaystuhu la baxay dalkiisa ee Abervolta, isagoo uu bixiyay Burkina Faso oo micnaheedu yahay dhulkii dadka sharafta lahaa. sanadkii 1984 sidoo kale waxa uu kor u qaaday waxbarashada dalka 60%, wuxuuna soo saaray dad waxna qori kara waxna akhrin kara. Thomas wuxuu dhisay biyo-xidheenno, waxaana uu ka hortegay abaarihii iyo macaluushii dalkiisa sida isdaba joogga uga dhici jiray, wuxuuna u dejiyay nidaam iyo hab looga hortegi karo. sidoo kale wuxuu sameeyey dhir beeristii ugu ballaadhnayd ee Afrika ka dhacda, wuxuuna beeray 10 milyan oo geed oo lagaga hortegayay saxarowga dalkiisa hooyo. sidoo kalena Thomas wuxuu tallaalay in ka badan 2,500,000 oo caruura. Thomas wuxuu ahaa feministi, wuxuu aad u taageeri jiray dumarka, wuxuuna u ogolaaday inay xil sare ka qabtaan dowladda uu maamulayay markaas. waxaa kale oo Thomas lagu ammaanay inuu aaminsanaa inay Afrikaanku kheyraadkooda la soo baxaan kana fogaadaan caawimaadda reer galbeedka ee shirqoolku ku hoos duugan yahay. Thomas wuxuu diiday inuu bixiyo deyntii ay sheeganayeen reer galbeedka iyo baanka adduunka. Sankara wuxuu horumariyay dalkiisii, wuxuuna caqabad joogta ku noqday wadamadii reer Yurubka ahaa ee rabay inay iska gurtaan kheyraadka dalkiisa, gaar ahaan France. ugu dambeyntii 15 Oktoobar 1987 waxaa shirqool ay ka dambeeyeen France iyo saaxiibkiisa siyaasadda ee uu aadka u aaminsanaa waa Blaise Compaoré ay dileen Thomas Sankara isagoo ay da'diisu tahay 37 jir. kadib dilkaasi waxa uu ka noqday dalkiisii hooyo halii marnaba aan la hilmaami karin oo qalbiyada dadyowga Afrika iyo kuwa reer Burkina Faso ku xaradhan. waxa uu ilaa iyo maanta oo dhimashadiisii laga joogo 35 sano ka caansan yahay madaxweynayaal hadda dalalkooda xilal ka haya. halkaas ay maanta inoogu joogaysaa. channelka haddaad ku cusub tahay subscribe like haddaad fiidiyowga ka heshay si aan u soo badino. commentiga fikirkaaga noogu reeb. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.